maayarka degmada gabiley maxamed amiin cumar cabdi oo warbaahinta la hadlay 12 May ayaa sheegay in gobolka gabiley uu qalmin in gudida heer qaran ee COVID-19 ay qoondeeyaan raashin dhan 2,000 oo qoys. maayarka degmada ayaa sheegay in gobolka gabiley yahay gobol ballaaran oo shacbiyad badan balse ayna qaadanaynin raashinka 2,000 oo qoys. gudida heer qaran ayaa qorsheynaysa in guud ahaan Soomaaliland loo qaybiyo 930 oo qoys oo gobolka gabiley loogu qoondeeyay raashin dhan 2,000 oo qoys. arrintaas ayaa noqotay arrin uu maayarka magaalada gabiley saluug baan ka muujiyay. maayarka degmada gabiley oo hadalka sii wata ayaa gudida heer qaran ugu baaqay in ay cadaalad ka shaqeeyaan wuxuuna yiri gobolkan gabiley runtii waa gobol ballaaran oo ka kooban 6 degmo kamida gobolada ugu dadka badan jumhuriyadda Soomaaliland. arrintan COVID-19 kuna gobolada ay sida gaarka u saameysay uu ka mid yahay oo hadii aynu eegno marka gudaha laga yimaado dalkeena dibadda meelaha ugu badan ee laga soo galo waxa kamida wajaale arrinta jaadka lafteedu culaysyada ugu waaweyn gobolada ku dhacaan baynu ka midnahay. booliska gobolka gabiley ay u qabteen jaadku wuxuu marayaa 28 marka laga yimaado caasimadda ma jiro gobol qura oo booliskiisu ay 28 gaadhay arrinta u soo qabteen. COVID-19 gudida heer qaran ay gobolka arrinta kula qaybsanayaan oo ka yimid ma jirin. waxaan u arkaynay inaanu waajibaadkayga qaran ee intii xagga iyaga ah aanu qabanano. marka taa laga yimaado waxa socda saan horeba uga hadlay dadaalo loogu jiro sidii dadka ay duruufaha dhaqaale COVID-19 uu saameeyay loola tacaali lahaa. waxa ka warqabteen inay gabiley ahayd meeshii ugu horeysay ama dawladdu ugu horeysay ee dadka runtii duruufahooga la qaybsata. mar walba waxaynu isu dhiganaa ila qaranka kaalin bay kaga jirtaa wixii aynu qabsan karnaa inaynu qabsano. waxaan haddaba la iloobi karin kolba qaranka wixii u soo kordha xaq baanu u leenahay wixii noo qalma inaanu qaadano oo gobolku wixii u qalma marka loo eego populationka gobolka ku nool inuu qaranka la qabo oo loo cadaalad sameeyo. saadaradeed waxa jirta in 30,000 oo qoys ayaa qaranka loo qaybiyay oo ay qaybinaysa hay'adda Notfor intaanay gudida heer qaran ku dhawaaqin raashinka iyagu gaar ugu tala galeen dadka danyarta. raashinka 30,000 oo qoys runtii gobolka gabiley waxa loogu qoondeeyay qoondaa 800 oo qoys. waxa ahayd waxaan populationkayga iyo gobolkayga midna aan cuntamin oo tirada dadkaygu mar walba ay ka badanta kamaanaan hadalo waxa weeye waa duruufaha soo kordhay oo waxaanu isleeyahay kolba sidii loo jabaa loo dhutiyaa qarankiina 800 ee ka hesheen u qaybiya. saad ka warqabteen caasimadda gobolka gabiley laguma qaybin iyo magaalada kala baydhba. waxaanu kaliya ku filaysiinay 5 degmo 4 degmo oo kamida gobolka oo numid 2 qoys 200 oo qoys u siinay. runtii waxa tii nagaga daran oo hadda naga soo gaaray gudida heer qaran ee COVID-19 in raashinkii 60,000 oo qoys ahaa oo imika 930,000 oo qoys raashinkooda ay diyaar yihiin in gobolka gabiley loogu qoondeeyay raashin 2,000. runtii arrinta waxaan u aragnaa arrin deelqaaf oo aan gobolkan qaban markaan waxba lahayn duwa alxamdulillaah waxba la soo canaanan maayo. laakiin 930,000 oo qoys marka gobolada Soomaaliland loo qaybinayo ee gobolka gabiley la og yahay populationkiisa la leeyahay 2,000 oo qoys baanu siinanaa. runtii arrinta halkii hore Notfor ay marisay baan u aragnaa in la mariyay. waxaan u aragnaa waxaan qaadan karin anigoo ku hadlaya afka shacabka reer gabiley gudida COVID-19 waxaan u sheegayaa inaanaan diyaar u ahayn in 2,000 oo qoys raashinkaanu dadkaygu u qaadno oo aanay u cuntamin nanana qaban gobol ahaan. gabiley waa gobol waynu ognahay oo baarlamaanku mu sharciyeyn laakiin goboladii dambe gobolka ugu weyn ugu tirada badan baynu nahay. waxaan ka tiro badan nahay goboladii hore qaar ka mid ah. gabiley ma qabato in maalinta qaranka dhibaato iyo hawli ku soo korodhana gobol la yiraah maalinta wax la qaybsanayna aanu tuulo noqono runtii wax la qabto maaha. waxa jiray in ka warqabtay in baabuur wacyi gelineed loo dirayay
oo ay guddidu hawshii horreysay qabatay ahayd gobollada Soomaaliland gaadiidkii la dirayay iyo shaqaalihii la dirayay labadaba reer gabiley iyaga istabaray dawladda hoose gabiley baa dabartay waxaanu ka mid ahay gobolladii la yidhi istabaraan markaa runtii gobol ahaan baa laynoo xisaabinayay marka dee dhibaata ama culays qaranka ku soo kordhana inaanu gobol noqonno maalinta wax la qaybinayo ee barwaaqo iyo wanaagumada u soo kordhaan inaanu tuulo noqonno nama wada qabato marka waxaan leenahay waxa weeye cadaaladda ha la ilaaliyo shacabka reer gabileyna runtii qarankooda in badan bay u dulqaataan oo aanu dawladnimo jacaylka iyo dad jacaylkaba runtii waxyaalo fara badan uga tanaasulaa dayaanay taasi u muuqan doqonnimo qaranka waxa weeye runtii dawlad la wada leeyahay wixii imaadaana wuxuu u baahan yahay oo u baahannahay inaan waxaanu xaq ku leenahay ka helno guddi waxaan leeyahay arrinta idin kama aqbalano annaga iyo shacabka iyaga midna waa inay isu noqotaan waa Jaafar Awil Hereri telefishanka sahan magaalada Gabiley